iyadoo ay deegaanada Soomaaliya ka jirto abaar baani ayaa dalka iyo dibadda laga wadaa olole xooggan oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu dariska la noqotay ee Soomaaliyeed. ardayda jaamacadda BSU ee Garowe oo kaashanaya xubno samafalayaal ah ayaa wada gurmad ay ku caawinayaan dadka ay abaartu la degtay iyo dhalinyaro kale oo iskaashanaya. Fardowsa Muuse Faarax waa gudoomiyaha guud ee ardayda jaamacadda BSU ee Garowe, waxaana ay sheegtay inay ka arday ahaan u helayeen gurmadka abaaraha ayna maal iyo muruq la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. waxaan isugu nimay inaan caawino walaalaha iyaga abaaraysan aan u istaagno kana istaagno gayiga aan hadda joogno ee Garowe anagoo ardayda isu qaybinay dhowr kooxood. kooxaha Dirabid ma ka shaqeynay magaalada gudaheeda oo wax ka soo ururinaya, kooxo jaamacadda gudaheeda oo xilsaaran inay wax ka ururiyaan, iyo kooxo u baxaya meelaha tabaalaysan gaarsiinaya waxyaalihii la urushay. runtii waxaan u baahanahay inaynu emergency response ka bixino abaaraha taagan. uma baahnin deeq inuu ka timaado dal shisheeye. waxaynu marka u baahanahay dhamaanteed ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto mid walba inuu midka kale u istaago. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku fiirinayaa abaarta haysata walaalaheen. dhalinyaro u badan gabdho ayaa dhexda u xirtay sidii ay bulshada uga soo ururin lahaayeen kaalmada ay ugu deeqayaan dadka iyo dunyada abaaraysan. dadka u gargaarayno oo si taagayno waa dad dhibaataysan oo inaga aad inooga liita, baadiye ku nool, xoolahoodu waa ka dhamaadeen, harraad bay la dhimanayaan, gaajay la dhimanayaan. anigu waxaan u qaabilsanaa timirta. marka timirtaas aan ururinayay waxa weeye Facebook-gaan soo dhigay, qof walba oo soo wacaya wuxuu leeyahay kartoon halka ka qaad, muskiila qaad. waxaan kale ku boorinayaa dadka dhalinyarada idinkoo meel kale wax ka doonin afarta xaafadood iska horjeeda in ka soo horjeeda ku garaaca albaabka, qof kasto dareen leh uu soo boodaya wadina caawinaya. xalay waxaan balan qaaday $1 inaan keeno. $1 anu ma hayo, laakiin waxaan jeclaystay inaan keeno. xalay maqribkii ilaa hal saac baa arintaas sheegay. waxaan hayaa $463. ma filayn inaan inta helayo. waxaan rajaynayaa dadka igu sokeeya ama familkayga ahaadaan ama friendskayga ahaadaan inaan ka bilaabo. nafsad ahaantaynana waxaan jeclahay baan sheegay ka badan inaan keeno. anoona awoodin waana samayn doonaa insha Allah, kamana hari doono dhibaatada jirta. Samafale Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa qayb ka ah dadka sida weyn ugu ololeeya gurmadka abaaraha, waxaana uu sheegay in deeqdan ay soo ururiyeen ardayda jaamacadda BSU iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay guddoonsiin doonaan 100 qoys oo degan deegaanka Sinojiif ee gobolka Nugaal. kulankii xalay jaamacadda lagu qabtay ee dhaqaalaha loogu ururinayay waxa uu hadda u bedelmayaa ficil buu u bedelmayaa. hadda waxa Garowe ka dhaqaaqaya mar dhow gaari sida 100 qoys oo dadka walaalaheena tabaalaysana raashinkoodii lana geyn doono magaalada Sinojiif. waxaan rajaynaynaa maalin walba inaanu 100 qoys ama in la mid ah inaanu maalin walba wixii aanu gaarsiin karna gaarsiino. sidoo kale waxaan munaasabadan ka xusayaa in ciidankii difaacuna ay arrintan ka qayb qaadanayaan. ciidanka commandoska ee Puntland waxa ay ku deeqeen hadda booyada ay lahaayeen, iyaduna hadda ayayna ku imaanaysaa jaamacadda. waxaan rajaynaynaa inay iyaduna haddeer hawdka meelaha ugu tabaalaysan ay biyo u qaadi doonto. qof walba oo wadanka jooga iyo qof walba dibadda jooga iyo qof wax haysta iyo qof aan wax haysanba hal fariin baan u diraynaa. fariintaas oo ah qof walba oo ogsoonow in uu jiro qof ka liita maanta oo ka hooseeya oo aad badbaadin ka dhid sida Maariyo kale in uu damiirkaagu ku diro inaad u qaadatid kolaygaaga sidii aad qof walba oo saaxiib kula iyo qof walba oo aad taqaanid aad ugu dhiirigelin lahayd inuu sadaqaysto oo dadkiisa badbaadiyo. gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu la degtay ayaa ka socda dhammaan deegaanada Soomaaliya. dhinaca kale marka loo eego dadka iyagu isu xilsaaray gurmadka iyo deeq bixinta ayaa hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan gurmadka masiibooyinka doorkoodii uusan marna ka muuqan meesha. Subayr Habil Saciid, Kalsan TV, Garowe.